بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله خالق ميل والبنت عالم كجوكتان وولاشين أليشة وإذنكو سلاميسا سلامة المسلم وحيد الله يسود وهذا channel كيجا سيدو قروح دبنا إلى سعتان آدي إذنك جمهد علنا يا وحيد الله يا مركو فيديو بيوكسو جارو لما تلا بلود داو إن شاء الله في وحبة كفايدة دون تان وحبة إذن كفايدة يا بإذن الله سيدو قروح دبنا إلى سعن جرتين إلى سعدا لايك سبسكرايب كومنت دي رجلنا وحقينا maantayto waxaa meeshaan lagu karin rabaa bahal casho ah ay ka dhacday waa baastadan waa baasta barilla supermarketka ka soo iibsanay dukaamada zaid ma taalo wadankeena soo qaarada ma lagu gado laakiin supermarketka any supermarket oo ku dhow ka soo heli kartaa waa labadaas xabo baastada linguine la dhahaa linguine laakiin baasta barilla sideen u naqaanay iyo shrimp-kaas la karinayaa insha Allah walaashay maantayto way iga tagaysaa soo maantayta jikada isla sii galaynaa xasuus insha Allah basashaana meeshan ugu jarjaran barbarooni saddex nooc ah tuun aan soo yareeynay olive oil-kaas iyo basto bahalkaas waa reexanteeni Soomaaliya kabsar caleen ma aha waa reexantiyo shiidan oo diyaarsan saliideeda waxay dhan qabto waa idana supermarketka ka soo iibinay in supermarket ayaa ka heli kartaa basto laada American joogtid waa helaysaa Europe meelahaas oo dhan laakiin se wadankeena even Kenya waa laga helayaa supermarket yaasha ah ka helaysaa waa kaasa qoraalkiisa screenshot waa ka qaadan kartaan waa kaasa qoraalkiisa inaba caadi ma ahan aan ku iri intaan ayay baantay taadayna ka kooban tahay already baastada biyaheeda dabka ii saaran olive oil iyo cusbaan soo karkariyay way soo karkareen hadartaan dhinaca dabka aadayna shaqadayna halkaas ayay noogu bilaaban doontaa bismillah ما شاء الله بانكي ayaan dabka soo saartay waxaan ku shubayaa waa saliidi olive saliida markay dabka soo qabsato basasha ayaan shab ku siinayaa biyihii baastada already diyaar waaye laakiin se waxaan rabaa marka hore inaan shrimp-ka diyaarsado shrimp already cooked already wuu karsan yahay shrimp-ka laakiin se wax yaris ah dabka inaan tusino hadii 5 ilbiriqsi camal inaan dabka tusino waaye insha Allah waxaan ku soo shubayaa waa bunti aan soo yareeyay bismillah halkaan spinach-ka maalinkii dhaweyta camal oo lahaa cream-ka ayaa meeshaan maanta ku diyaarsanaya asagana konta markay haf ku tiri basasha ayaan ku shubayaa kaasaan ku shubay basasha brown noo soo noqoto waan ku soo noqonaynaa inta basasha brown markay noo soo noqoto ma sha Allah basashi iyo brown ay soo noqdeen half basashi waaye bell peppers-ka ku daraya barbaroonigi oo saddex nooc ah waa guduud iyo cagaar red yellow and green-ka waa isku walaaqaysaa waa basashi half basashi waxaan gogooyay hal xabi half basala ka bacdina maxaa la dhahaa wax yiisalan kaga shubnay and then bell peppers-ka barbarooniga oo yellow-ga iyo red-ka iyo green-ka cagaarka jaalaha iyo guduudka ku darnay oo la isku walaaqayaa saas iyo basasha si isku dhex galaan wax yar bas 5 daqiiqo camal and then basashi hal xabbi halfka ahaa oo basal gaduuda intaas ka hartay halfkii aan reebanay tartiiba ugu daraya kulli ma ku wada shubaayo soo qaar kale ku shubaya barbarooniga suu la karo saas marad inuu zaid u karo and then wax kale ku daraya bas
and because basasha iyo barbaroniga karsiga ku badan yahay inay dhaqso ku karto. And then waa kanada the pesto sauce so ma jeedin waa pesto sauce meel kasta ka heli karta wadan adduunka meesha kasta ka joogtid Africa, Asia, Europe, America. It doesn't have to be necessarily brand kan inuu ahaado brand kaas ma aha meel walba ka heli karta saas markay isku karan waa ku shubanaysaa qaada usoo qaadanaya kusoo saaraya basically waxaa sameynaynaa waa shrimp iyo linguine pesto shrimp pasta waxa waaye linguine pastada balbalaarka midii ka yariista ku xigta waaye oo balbalaarka fiinada ogaa fiinana aan xigin waa isku shubaysaa saas al isku walaaqaya waa is dhex galgalinaysaa iyadii barbarooniga iyo basasha then basashii intii hadda ka hartay waa tana the last intii ugu dambeysay basashii ugu dambeysay waa ku shubayaa magama sheekayn kara carafta meeshan ka soo baxayso maasha Allah marka saas dhaxdid shay ka dhacday waa daboolaysaa intaas yar dabkana waa ka damsanaysaa baastada intaas sii karsanaysid baastada waa tana linguiniga brilla ama meel walba ka heli kartaa adduunka baasta any baasta arabtid oo linguini mujada 9 minutes 9 daqiiqo ku kartaa so 9 daqiiqo ka yar cuntadan isku dhex galaysa shrimka hadda ma ku daraysid waa si gaabin dabka la u daminaysaa and then baastada 9 minutes ku karsanaysaa baastada markay karto oo wax yar ka dhimantaa shrimka ku daraysaa kas shrimka waa midii already karsanay biyo baastada meeshaan inoo saarnaayeen way noo karaayeen so hadda inta u soo wareejiyay okay and then baastadii ku shubaynaa biyo baastada already noo soo karkareen cusbo iyo olive oil aan ku daray baastada waa noocaas ballaarkii weynaa zaa'idkana ma ahan fiinana ma ahan laakiin waa baasta balbalaar linguine so baakadii maanta waxaan ka karsanaynaa hal xaba iyo half nus waaye waa nus kiilo iyo bar qiyaasta waan kusoo noqonaynaa baastada markaan soo miiro insha Allah 9 minutes waaye timeka 9 minutes exact ku sad garaynaysaa because waxaa rabtaa baastada inay al dente kusoo baxdo marabta inay zaid kaaga jilcdo qof walba wixii uu isaga suu jeceliya baastadiisa waaye laakiin baastada waxay ku qurxon tahay al dente so anaga al dente ka dhiganaa exactly masakoto ha waa kaasa al dentena waa dhahnaa so waa kaasa calamkii wuu ii qayliyey waa kaasoo qaylinaya calamaan buuxsaday 9 minutes so already 9 minutes-kii way gaartay dhaladii aan ka gediyey reexaanta ayaan kusoo dhaqdhaqay waa taasa baastada korkeedii kor ka saarsaaran maasha Allah dhowta qurux ay ku noqonay waa soo miiraya hadda ayaa hadda dib ugu soo celiyey suugada waa barbarooniga iyo basasha iyo qudaarteeni ayaan dib ugu soo celiyey marka shrimpkii banaanka ayaan dhigay barafkii iyo wixii dhan wuu ka baxay qofkii raba wuu iska goyn karaa qofkii rabana wuu ku isticmaali karaa waa meeshii saynta ahayd ana laakiin waxaan jeclahay mar walba inta saynta markii la cunayo ma iska gooyo barafkii wuu ka soo dhacay waa ujeeda maasha Allah aad ayay u soo dhalaashay shrimpkii barbaroonigii basashii diyaarka ahaa shrimpkii aa ku shubaysaa iyo reexaantii shrimpka wuu already wuu karsan yahay midii karsanaydaan soo gaday just waa iskula gadinayaa leh saas waa ku guranaysaa markaa ku guratid waa iskula walaaqaysaa
saan baa iskula gadinaysaa bas ujeedaa flavorska dhan suu u gala shrimka oo reexaanta iyo everything maxaa la dhahaa cusbo iyo aan waxba kuma darin iyo wax kaleeto oo carfis ah waxaa waaye reexaanta uma daraayo iyadaa reexaanta waxaa dhan wadata baastadana already cusbaa ku darsatay so uma baahnid saana iskula walaaqaysaa kulli dhexda inay ka gasho flavorska dhan waa isku rogrogaysaa dab badan uma baahna because shrimpka already way karsan taha just inaa flavorski un dhex gelisid leh waakaasa sida flavorska dhan ugu walaaqsamo shrimpka suma jeedid u qabsado ay isku dhex galaan iyo barbarooniga basashii iyo reexaantii saas marka isku wada dhex galaan baastadiina way noo diyaar waaye waa soo miirinay waa isku walaaqaysaa adiga about 5 minutes oo fiican saas u walaaqaysaa le markaa saas ugu walaaqdid wax yaraa dabka ku siinaysaa 5 minutes hey Siri set a 5-minute timer timerkaasaad garaysanaysaa Okay, lost the connection. Let me try that again. Okay, 5 minutes and counting. 5 minutes aad saraab garaysanaysaa isuu isku dhex gala flavorska iyo shrimpka already wuu karsan yahay dab badan uma baahna kabacdina baastada lagu soo gadinayaa ma la daboolayo daboolay waxba ma saaraysid wax yar kabacdi dhan waa gadinaya haddana sidii tan hoose adiga about 5 minutes aa siinaysaa si isku dhex galaan leh flavorska iyo shrimpka uu qabsado shrimpka dab badan muu baahnaa you just waxa u baahan tahay in flavorska maxaa la dhahaa flavors carafta dhan u gasho shrimpka waa kusoo noqonaynaa 5 daqiiqo ayaa noo telefonka lagu qabtay 5 daqiiqo ka bacdi waa wixii dambaan samayn doono biidmillah ayaan isla wadaagaynaa walaalahayda qaaliga telefon ayaa igu soo dhacay oo videoga samaynaya farkeetada qaadanaya waxa dhan waa isu soo dhexgelinaya carafta lagama sheekayn karaan ku ul maasha allah diyaar waaye dabkiina waa la damiyey waa kaasa sidaas quruxda badan ayay kusoo baxday zubki wax yaraan soo dhaweeyo zoomkaa ka bixinayaa weli abaayo zoom gare zoomka ka yara okay waa kaasa sidaasay kusoo baxday hadda dininka aadaynaa maasha allah saxanka oo kusoo buraya waxa dhan ansalaatada cabitaanka waxa dhan oo soo diyaarsanaa telefon ayaa igu soo dhacay oo videoga samaynaya farkeetada qaadanaya waxa dhan waa isu soo dhexgelinaya carafta lagama sheekayn karaan ku ul maasha allah diyaar waaye dabkiina waa la damiyey waa kaasa sidaas quruxda badan ayay kusoo baxday zubki wax yaraan soo dhaweeyo zoomkaa ka bixinayaa weli abaayo
zoom garay may zoomka ka yara waxay okay baakaasa sidaas ku soo baxday hadda dininka aadayna maasha Allah saxanka ku soo guraya waxa dhan ansalaatada cabitaanka waxa dhan u soo yaarsanaa maasha Allah waa taasa waa soo kariyay sida quruxda badan ayay ku soo baxday baaquligan aan ku soo gadiyay farkeetadeeda iyo qaadadeeda geeska ka soo galiyay baastada kor marka u soo qaado lagama sheekayn karo cheese ayaan saas u soo habeeyay baaquliga bahalka ice cube ka ku soo hagaajiyay lagama sheekayn karo aan ku iri maasha Allah cashadeeda quruxda caawayto halkan waxa ay saaran waa passion juice passionka aan ka sameeyayna waa passionka yellowga ah sida uu wada naqaano passion juice oo baraf ice cube soo saaray ayaa meeshaas ii saaran waa kaas aan ku iri ansalaatadii aan meesha ka maqnayn iyo liin dhanaan kaarooto iyo qajaar iyo yaanyo maasha Allah sida quruxda badan ayay cashadeeda caawayto ku soo dhamaatay xaajiga ka dhis ilmaha ka dhis nafsadaada u raaxay adiga ku raaxayso maasha Allah qofkii shrimp rabin inuu ku cuno abahaya ila hadlaysay sorry qofkii aan rabin inuu shrimp ku cuno chickenka steak uu ka sameeyay chickenka suqaarka uu ka samaysan karaa qofkaan cunin waa shrimpka chicken suqaar uu ka samaysan karaa haddaa isku fiicantiin adiga iyo shrimpkaas ka samee maasha Allah waa ka saacadayday sida quruxda badan ayay ku soo baxday waxa idin leeyahay ku soo dhawaada channelkayga waa walaashin Umu Alisha oo idin dhahaysa like subscribe share comment dhiirigelin ah waa xageena biidmillah walaalaha kale igu cusubna waxa idin leeyahay subscribe to my channel ku soo dhawaada walaashin Umu Alisha idin kaga tagaysa salaanta muslimka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh meel bad caalamka ka joogtaan jazaakumullahu khayr